gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Burco Mr Maxamuud Axmed Xasan Dhagalaab ayaa maanta xariga ka jaray dhismo cusub oo hay'adda qaramada midoobay ee UNDP ka hirgelisay magaalada Burco kaasi oo loogu magac daray xarunta xoojinta nabadda ee gobolka Togdheer. Xafladda furitaanka goobtani cusub ayaa ahayd mid ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka Togdheer kan degmada Burco guddiyo nabadgelyo oo ka kala socday gobolada Sool iyo Togdheer, hay'adaha UNDP iyo DDG, salaadiin iyo cuqaasha gobolka Togdheer. ugu horeyn waxaa munaasabadani ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Yaasiin Maxamed Cabdi iyo gudoomiyaha degmada Burco Mr Maxamuud Axmed Xasan Dhagalaab waxaanay tilmaameen inay soo dhaweynayaan dhismahani laga hirgeliyay magaalada Burco kaasi oo si weyn uga qayb qaadanaya xoojinta nabadgelyada. waxaanay hay'adda UNDP ka codsadeen inay sii xoojiso hawlaheeda waxqabad ee gobolka Togdheer. waxaan aad ugu mahadnaqayaa hay'adii noo dhistay UNDP iyo hay'adaha kale kala qayb qaatay iyo dhammaan howlqabadkii iyo waxqabadkii ay la qabteen dowladda hoose iyo annaguba oo aanu halkan aynu maanta joogno ugu deeqnay ama siinay inay dhisto hay'adda UNDP una dhisto guddida horumarinta nabadda ee gobolku uu yeelayo oo la shaqayn doonta runtii hay-adaha sida ama kuwa dowladda ha noqoto ama kuwa kale hadda aynu noo sheegayay. culimadii baa idinku jirta oo tii diinta cuqaashi baa idinku jirta oo tii dhaqanka qoladii oran jirtay barboosiris iyo waraaqo qorow iyo waxbaanu samaynaynaa mashaariicda ayay idinku jirtaa. intaba isku daro mid qura cusub oo wada cusub inay jeexdaan baa laydinka doonaya. Dr Ciise Nuur oo isaguna halkaasi ka hadlayay ayaa isaguna ka warbixiyay xaruntani iyo hawlaha ay qaban doonto. taas oo ay ka hawlgeli doonto guddi la yiraahdo horumarinta nabadda ee districtka Burco. guddigaasi waxay ka kooban tahay ilaa 15 qof 15 qof oo ka yimid bulshada kala gegedisan anwaacdeeda sida shuyuukhda, cuqaasha, aqoon-yahanka iyo booliska iyo dawladda hoose. xaruntan waxaa loo dhisay markaa inay noqoto xaruntii lagu ururinayay macluumaadka. guddidaasina ay ka hawlgelaysay oo ay noqon doonto meesha dhibaatooyinka dalka ka dhici kara lagu analyze gareeyo ama lagu daraaseeyo si wax looga qaban karo lahaana u bandhigi karta. Suldaan Cismaan Suldaan Cali Madar oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa si weyn u soo dhaweeyay hawlaha ay hay'adaha caalamiga ay ka fulinayaan Soomaaliland isagoo suldaanku tilmaamay in loo baahan yahay inay hay'aduhu u xaqsooraan waxqabadka gobolada ay ka hawlgalayaan isagoo suldaanku si gaar ah u tilmaamay in barnaamijka ay haatan wado hay'adda UNDP ee dhanka nabadgelyadu uu yahay mid si gaar ah u khuseeya gobolada bariga Soomaaliland isagoo suldaanku xusay in gobolka Togdheerna uu mar walba taariikh iyo xusid ku leeyahay hawlihii nabadeynta ee Soomaaliland. waxa kale oo meesha xusuusteeda mudan horta marka ugu horeysa dalku waa nabad. Soomaaliland marka laga hadlayo waa dal nabadeed guud ahaan waxaan si jirta dadku dadan iyo daalacan buu kala dhashay. waxaan leeyahay daalacan baa laga dhigayaa dalalka waaweyn ee adduunka maanta ugu horeeya Mareykan ka mid yahay Soomaaliland way ka nabadsantahay. madaxa hay'adda qaramada midoobay UNDP ee Soomaaliland Master Iknokisai Takwari oo isna kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in dhismahani ay ka hirgeliyeen magaalada Burco uu saldhig u noqon doono sii xoojinta nabadgelyada gobolka Togdheer iyo dhammaanba inta jecel nabadda isagoo tilmaamay inay sii wadi doonaan barnaamijyadooda horumarineed. intii ay munaasabadani socotay ayaa waxaa halkaasi lagu soo bandhigay xog ururin laga sameeyay gobolada Soomaaliland taasoo si weyn u iftiiminaysay tacadiyada kala duwan ee lagula kaco haweenka carruurta iyo mujtamaca intiisa kale iyadoo warbixintanina si weyn daaha uga qaaday in dhulka Soomaaliland aan waxyeelooyin loogu geysan dadka barakacayaasha ee ka yimaada wadamada Soomaaliland la jaarka. ugu dambeyntii waxaa halkaasi lagu soo bandhigay riwaayad ay matalayeen kooxda geediga nabadda taasoo ku saabsaneed sidii la isaga kaashan lahaa ilaalinta nabadgelyada iyo samaynta guddiyo nabadgelyo oo ka howlgala dhammaanba gobolada Soomaaliland. Maxamed Caawad Maxamed, telefishinka caalamiga Somali Channel, Burco.